hogaamiyaha cusub ee koonfur galbeed Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa sheegay inay cabsi xoogan ka qabaan in maamulkii Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ay kala wareegaan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kalena xubnaha kooxda Al-Shabaab ay soo eryadaan dadka shacabka ee reer koonfur galbeed Soomaaliya ee ku nool gobolada kale ee maamulkaasi. Aadan Madoobe ayaa walaa xoogan ka muujiyay in ciidamada Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo maalmihii la soo dhaafay dad mas'uuliyiin ah oo hore kaga tirsanaa maamulka dawladda Soomaaliya taabacsan ee Aadan Madoobe hogaamiyo ay u gacan galayeen ay ku dhow yihiin inay la wareegaan gacan ku haynta magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee koonfur galbeed Soomaaliya. waxaana hadalkan oo maanta si weyn u heesta baraha bulshada Soomaalida ku xiriidho ayagoo dadka Soomaaliyeed isweydiinayaan sababta ka laftay in Aadan Madoobe oo sidaan oo dhan walaac uga muujiyo in ciidankii Laftagareen ay ku dhow yihiin inay Baydhabo qabsadaan kuwaasi oo duleedka magaalada Baydhabo ku sugan. saacadihii la soo dhaafay ciidankii Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa waxa ku biiray gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada ee magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ee koonfur galbeed Soomaaliya asagoo sheegay inuu qayb ka noqonayo dadaalada la doonayo in dib loogu qabto magaaladaasi maamulka Aadan Madoobe uu hogaamiyo iyo dawladda federaaliga ee Soomaaliya. hadalkan ayaana waxa uu dhiirigelin u noqonayaa sida ay qabaan dadka faallaya siyaasaddu ciidankii Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo maalmihii la soo dhaafay si weyn u sheegay inay doonayaan inay la wareegaan magaalada Baydhabo iyo gacan ku haynteeda. hogaamiye Aadan Madoobe hadalka uu sheegay maanta waxa uu si weyn dadka Soomaaliyeed ee ku sugan koonfur galbeed Soomaaliya ugu abuuraya walaac xoogan ayagoo dadku ay ka cabsi qabaan in ciidankii Laftagareen ay soo weeraraan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee koonfur galbeed Soomaaliya halkaasina ay kala wareegaan maamulka cusub ee Aadan Madoobe uu hogaaminayo. Aadan Madoobe ayaa dawladda dhexe ee Soomaaliya geesay deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ka gadaal markii Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen uu iskaga cararay maamulka magaalada Baydhabo kadib weerar xoogan oo ku soo qaadeen ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya iyo ciidamo la magac baxay badbaadada koonfur galbeed Soomaaliya kuwaas oo ka ruuqaansaday magaalada Buuraha Kabe ee gobolka Baay. weerarkaasi ayaa sababay in Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ciidankiisu ay galaan dhulka hawdka ilaa iyo waqti xaadirkan ay ku sugan yihiin. dad mas'uuliyiin ah oo maamulka magaalada Baydhabo kamid ahaa ayaa tagay dhulka hawdka ay ku sugan yihiin ciidanka Laftagareen waxaana dhamaantood ay sheegeen inay kaalin ka qaadanayaan dadaalada ay sheegeen in dib loogu qabanayo magaalada Baydhabo kuwaas oo ay tilmaameen inay qabsadeen wax ay ugu yeereen salbalaar labo oo magaalada Baydhabo gacanta ku dhigay. hadalkan Aadan Madoobe ka soo baxay ayaa maanta waxa si weyn u hadal haya ciidankii Laftagareen kuwaasi oo si weyn maanta ugu laba qabowsanaya maadaama uu sheegay in ciidankii Laftagareen ay ka cabsi qabaan in la wareegaan gacan ku haynta magaalada Baydhabo.